Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Maalin wanaagsan khayrta wada nagala xirta halkan waa barta YouTube-ka aan kulana maalba nagala socotaan. Maantana waxaan kusoo qaadan doonaa dowladda federaalka Soomaaliya oo ku hajabtay dagaal culus ee qaadayso ee kuna qaadi doonto ururka Al-Shabaab kadib markii la dilay Farxaan Qaroole iyo Nabadoon Cilmi. Dowladda federaalka Soomaaliya waxay ku hanjabtay in dagaalka kama dambeys ah ay qaadi doonto ciidamada Hiiraan joogana heegan la geliyay, kuwa la joogan Galmudugna heegan la geliyay, Jubbalandna ay dhaqaaq fara badan bilowday oo ayagana halkaas dagaal ka soo geli doonaan, Jubbooyinka ay weerar kusoo qaadi doonaan, Koonfur Galbeed ayadana dagaal ay u diyaar garowday lagu xireynayo gobolka Shabeellaha Hoose. Marka waxaa la leeyahay xaalku sida ma sahlano, dagaalada cirka ay isku sii shareerayaan. Madaxweyne Xasan Maxamed wuxuu sheegay in dagaalka nimankaas lagula jiro inuu yahay mid cadowga Soomaaliyeed inuu yahay Al-Shabaab, qofka caawinayana waa Al-Shabaab. Marka wuxuu yiri waa inaan ka hortagnaa. Dowladda federaalka Soomaaliya waxay u diyaar garowaysaa wada dagaal toos ah oo lala galo ururka Al-Shabaab maadaama dhibaato baan ay ummadda ku hayaan. Marka wuxuu dhawaa inaan isku mid ah ula dagaalanaa oo aan meel iska saarnaa ururka Al-Shabaab. Waxaa waaye muddo fara badan ay ummadda Soomaaliyeed dhibaateynayeen, dulqaadkiina hadda wuu na daayay iyo sidii hore ma u dulqaadan karno. Waa inaan dhinac uga soo wada jeesano dhan walbaba ayuu dhahay. Marka dhaqaaqa ciidan oo aad u fara badan ayaa dhankaas Jubbaland ka jiro. Taliye Saxardiid ayaa hadlay wuxuu sheegay in ciidamada ay ka baxaan difaaca kadibna ay weeraraan deegaanada Jubbooyinka ayna beegsadaan ururka Al-Shabaab. Waa gobolada Jubbooyinka aad iyo aad ay ugu badan yihiin ururka Al-Shabaab. Jilib iyo deegaanadaas oo dhan ayaga ayaa haysto iyo Kismaayo marka wax yar loo jiro Buula Guduud iyo Janaac Cabdulle dhulkaas oo dhan ururka Al-Shabaab ayaa joogo. Marka cabsi fara badan ayaa jirto, dagaalkuna wuu sii ballaaran karaa haddii Jubbaland ay inta ka qaado dagaalku halkan oo ka bilowdo, Koonfur Galbeedna oo ka bilowdo, ciidamada Itoobiya oo la sheegay iyagana in Soomaaliya gudaha usoo galeen ayagoo hubeysan kadib markii madaxweyne Xasan Maxamed oo boqday magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya ayuu wuxuu ka ballan qaaday Abiy Ahmed hadiiba Soomaaliya iyo Itoobiya ay xiriir wanaagsan yeelanayaan inuusan wax dhib ka qabin ciidamadiisana inay geli doonaan Soomaaliya wax alla wixii dagaal iyo wixii Al-Shabaab sida lagu xoreyn lahaa ay ka qayb qaadan doonaan. Waxaa dagaalada ka qayb qaadan doono dowladda Mareykanka oo iyadana duqeyn laga yaabo inay sameyso. Waxaa kaloo ka qayb qaadan doona dowladda Turkiga oo iyadana duqeyn laga yaabo inay sameyso oo go'aanka hadda la isla gaaray oo yahay. Marka xaalad dagaal ay Soomaaliya lugaha la gashay ciidamadii ka soo baxay Hiiraan maalin dhaweeto waxaa yiri aag waa inay ku laabataan dagaal ku laabataan. Cali Jeeto oo hadlay wuxuu dhahay wax ururka Al-Shabaab isku wajhi ayaan ula dagaalamayna qofkii ciidamada ka soo saara aagga iyo qofkii xagal daacinaya dagaalka lagula jiro ururka Al-Shabaab. Marka dagaalkii waa loo diyaar garoobay, hadda meel culus ayay xaaladdu maraysaa. Mar haddii Koonfur Galbeed is diyaarisay, Jubbaland is diyaarisay, Mudug ay hore isku diyaariyeen, Koonfur Galbeed iyo meel walba la iska diyaariyay, Hiiraan la iska diyaariyay, maxaa la dhahaa Qorqoor iyo gruubkiisa ayagana inkastoo Qorqoor Muqdisho joogo aaska Farxaan Qaroole shalay ka qayb galay Allah u naxariiste. Hadda laakiin waxaa leeyahay ciidamadu is diyaarinayaan Odawa iyo wasiirka Cabdullaahi Maxamed Nuur Jaamac ninka la yiraahdo oo gaashaandhigga ayaa halkaas joogo. Marka dagaalku wuu sii ballaaranayaa, marba meel ayuu kasoo furmayaa, dagaalku wuu sii fidayaa. Ururka Al-Shabaabna waa loo diyaar garoobay. Waxaa la leeyahay waxaan u aari doonaa ninka la yiraahdo Nabadoon Cilmi iyo Farxaan Qaroole oo qarax lagu dilay 2 maalin ka hor. Marka waxaan u maleysaa in hadda in loo soo wada jeestay in dagaalka toos loola galo ururka Al-Shabaab meelo fara badan oo ka mid ah ururka Soomaaliyana isheeg laga dagaal galay. Waxaa barahan bulshada ku jira in Cali Dheer u dhaawacmay iyo inuu dhintay waa la isku dhex waday. Marka dowladda federaalka Soomaaliya deegaanka Ceel Qooxle in lagu dhaawacay ayay sheegeen Cali Dheere ninka la qorgaab liiraan lagu dilay. Marka waxyaabo badan ay soo tarayo dhibaatooyinku way soo kululaanayaan, dagaaladu way soo kululaanayaan, laakiin Al-Shabaab waxay awood isugu geysay deegaanada Hiiraan iyo Galguduud dhankaas iyo Ceelbuur ilaa Hiiraan ilaa Wabxo Jacar iyo Bargaan dhankaas ay ciidamada geeyeen. Difaac adag ayayna ceel helay iyo ceel garas ka galeen leeyahay. Marka xaaladdu ma sahlano. Dagaalku Soomaaliya haddii oo saas uga bilowday oo Al-Shabaab iyo shacabkii dowladdii ay isfara saarayaan, xaaladii dadka haldoorada Soomaaliyeed ay dhimanayaan, mar ka dambeyso shacabkii ay xaaladda ku xun tahay. Maalmo ka hor waxaa la sumeeyay leeyahay ceel ururka Al-Shabaab ay sumeeyeen oo dad shacab ay ku dhamaadeen ilaa 2 qof ku dhintay 7 qofna isbitaalka la jiifiyay. Marka waxaa u maleysaa dagaal ahli oo xun in la galay oo meel xun la isla gaari doono oo ilaa ugu dambeyn in la kala bixi doono oo meel uun waji ee Soomaaliya yeelan doonto sababtoo sida hadda wax ku socdaan wax ku socon kara ma lahan. Waa meel walba dhibaato ayaa ka jirto, meel walba cabasho ayaa ka jirto. Marka shacabka Soomaaliyeed way dhibaataysan yihiin. Waxaa la leeyahay xaalku saan ma sii ahaan karo, waa in dagaal toos ah la galaa, waa in qof walba naftiisa oo bixiya iyo dhiiggiisa si uu isaga saaro ururka Al-Shabaab maadaama muddo fara badan laga cabanayay in dhibaato fara badan ay ku hayaan. Marka xaalka marka si dambe ka sii daraya dowladda Soomaaliya waxaa u maleysaa in sidii laga rabay aysan dagaalka ugu jirin. Waxaana lagu eedeynayaa dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha ra'iisul wasaaraha inaysan dagaalka daacad ka ahayn, inaysan bixinin hubkii inta loogu talagalay aysan bixin, inaysan bixin raashinkii iyo wixii looga baahnaa inaysan si toos u bixinaynin. Waxaa u maleysaa in ay xagal daacinayaan dagaalka oo ayaga naftikooda cagjiid oo ku jiro, laakiin maanta waqti la cagjiida ma lahan ayay leeyihiin dadka shacabka.
waxay leeyihiin faa'iido fara badan ayuu xasan maxamuud haystaa. maxaa Cabdullaahi Farmaajo laba kacdoon shacaba soo martay, labadana kama faa'iideysanin. laakiin xasan maxamuud hadda kacdoonkan hadduu ka faa'iideysan waayo dowladiisa weliba bilaaw haddii uu ururka al-shabaab ka saari waayo Soomaaliya, fashil ayuu ku dambeyn doonaa, ceeb ayuuna kala kulmi doonaa, sababtoo kacdoonka shacabka in laga faa'iideysto ayaa meel lagu gaaraa la leeyahay. marka shacabka Soomaalida waa kaceen, reer Hiiraan waa kaceen, reer Mudug waa kaceen, maxaa la dhahaa Galguduud meel kasta laga kacay, koonfur galbeed iyo Jubbaland laga kacay. marka kacdoonkan shacabka iyo dhaqaaqan jiro iyo dagaaladan loo diyaar garoobay ururka al-shabaab in laga xoreeyo Soomaaliya ha ka faa'iideystay leeyihiin dadka shacabka oo Soomaaliyeed oo baraha bulshada maalin walba ka hadlo. marka hadda waxaa isoo tarayo in dowladdu dhaqaaqa sameynayso oo hadalka shacabka ay xataa ka dhaweyn rabto, maadaama ay leeyihiin hala dhaqaaq. marka dagaalka haddii uu saan kusii socdo waxaa la dhihi karaa ama ururka al-shabaab Soomaaliya u hareyso ama dowladda Soomaaliya ayaa Soomaaliya u hareysa, sababtoo maalin walba inta la islama joogi karo, 2 canshuur 3 canshuur oo dhinac socdo, dadkii oo iska dhibaateysan, abaara haystaan, sicir barar ka dhacay, kiilada sokora $2 ay kusii dhowdahay, xaaladii way kasii dareysaa. 20 saliida $40 $30 kusii dhowyahay. marka xaalku sidii hore ma aha, wax badan ayaa isbedeli kara. maalmaha soo socdana haddii sicir bararkan iyo dhibkan ay kusii jiraan shacabkii iyo abaartii wixii isugu darsanaa ay kusii jiraan, culeys fara badan ay ku noqonaysaa. marka waxaan leenahay ilaahay Soomaaliya weji ha u yeelo, dagaaladan faraha badanna waxaa waaye ilaahay ka soo bixiyo. waxaa kaloo naga soo gaaraya dalka koonfur Afrika in lagu dilay 2 wiil oo Soomaaliyeed oo ganacsata ah, labadaba Cabdullaahi ayaa lagu magacaabay, ilaahay u naxariisto. waxaa goobahooda ganacsi ku weeraray niman burcad ah meel u dhow deegaanka Cape Town, halkaasoo ay isheeg ganacsi yaryar ay ku lahayn dukaaman ah, halkaas ayaana lagu weeraray. xalay waxaa la dilay habeennimadii labadoodaba meesha goobahooda ganacsiga ayaa lagu dhex dilay, 2 dukaan ayoo isku dhow ayayna lahaayeen. marka ilaahay u naxariisto, Soomaalida meel walbay ku dhiban tahay. haddii aan halkaas aan ka gudubno, waxaa la leeyahay waatii Muuse Biixi Cabdi loogu daray 2 sano dheeraad ah. Muuse Biixi asagoo faraxsan waatuu baraha bulshada ka hadlay oona isheeg u diyaar garoobay. saaka waxaa ka daba hadlay ninkii Cabdiraxmaan Ciro isagoo sheegay in waxa la sameeyey ay tahay qalad, wax la filayana aysan ahayn. isheeg Muuse Biixi in waqti loo kordhiyeyna aysan maanta waxba soo kordhinayn, xaalka Somalilandna uusan wanaag ku dambeyn joorin haddaan waxba iska bedelin. laakiin wuxuu dhahay 2 sano hadda kadib Muuse Biixi oo maamulayo wax noo soo kordhinaysa ma lahan, waana wixii aan shalay ka digaynay. marka cabsi fara badan ayaa jirto, maadaama mucaaradka iyo dowladda Somaliland ay mar walba isfarsaarayaan, xaalku oo sida kasii duunaanayo, maalin walba isheeg muran iyo isqabqabsi iyo doorashadii la isku haysto. marka 2 sano hadda kadib Muuse Biixi waxaa waaye bandar ayuu jiifaa, 5 sano soo laqay, 2 sano ku darsaday, 7 sano madaxweyne ma rabi wax kale. muxuu kaloo rabi karaa ilaa in 7 sano soo laqay waa ku filan tahay. 7 sano haddaad meel soo maamusho oo aad madaxweyne ka tahay waxaa waaye kugu filan tahay. marka Muuse Biixi dood ma galaayaba, wuxuu leeyahay aniga 7 sano xataa haddaba mar kale waa uu qabaa. laakiin nimanka mucaaradka cunaha kala go-aan waxay leeyihiin saan macquul ma waa nagula inta mashlaynayaa, sidii raba nagala yeelanayaa, wax dan noo ah anaga oo wanaag noo ahna ma ahin. Somaliland qalalaasi dhibaato iyo hor leh iyo fidna ayuu ka abuuraya Muuse Biixi waqtigan iyo golahan guurtidan iyo waxaan asaga wato woona isheeg woona sameeyey wixii aan shalay ka digaynay oon ka calacalaynay oon dagaalkii iyo banaanbax u galnay waa meesheedii waa sideedii, wax isbedelay ma laha. marka Muuse Biixina waa isaga darsaday leeyihiin. marka waxay leeyihiin waa inaan saan go-aan gaarnaa oo anaguna isku tashanaa oo go-aan gaarnaa. marka maalin waxay ku dhaarteen inay ayagana ay sameyn doonaan group ay sameysan doonaan, madaxweynena ay ku dhawaaqi doonaan November meesha lagu dhaafo. marka Somaliland ayadana xalkeeda waa kacsan tahay, waa ogaan doonaa meeshaas ayadana wixii kasoo kordho. shacabka Soomaaliya ku mahadsantihiin la socodkeena barnaamijkeena, waxaan ka codsanaa YouTube-keena subscribe iyo like share-tina la wadaagtaan. halkan ba idinka ayaa na soo gaarsiiyay, waana ku mahadsantihiin. tani kulanteed dambe xiiso leh waxaa idinka codsanaa YouTube-keena saas inaad noo sameysaan. tani kulanteed dambe xiiso leh, sidaas iyo nabadgelyo.